إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون gabadha iyadoo muuqata magaceeda wax la dhahaa Xafso shalay galab shantii galabnimo iyadoo ka soo baxday shaqadeeda ayaa laga afduubtay magaalada Nairobi iyadoo jidka maraysa ayaa koox shufta ah oo kiyaata ay afduubteen ilaa shalay waa la baafinayay maanta ayaa gabadhii waxa weeye muuqaalkaas laga soo duubay qolada shuftada ah oo afduubatay ayaa muuqaalkaas soo duubay waxayna u soo dureen eheladoodii waxay sheegeen in u baahan yihiin lacag gaaraysa 5 milyan sawjeedaan gabadha gacmaha waa farax xitaa waa laga jarjaray waxa weeye wajiga meel kasta oo ka dilan tahay waxay dalbadeen in la siiyo lacag 5 milyan ah mobilka ay ka soo hadleen ayaa lagu baadi doonay GPS-ka iyo GPRS-ka adigu waxa dibadna way ogaadeen kadibna waxa muuqaalo kale oo aan hadda ay la wadaagi karin ay soo duubeen oo gabadhii oo fariintay ka jarjareen waxa weeye gacmihii saa u lusha meeshan wax way gabadha ay ku haystaan wax way kulli waxa weeye waa meel ka mid ah duurka baadiyaha magaalada Nairobi gabadha loo gurmado muuqaalka hala share gareeyo qatar weyn ayaa ka bilaabatay dalka Kenya waxa la bartilmaameysanayaa gabdhihii Soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee halkaasi qaarkood waxbarashada u joogay iyo kuwii kale ee ganacsiga ku haystay oo lagu daray kuwii halkaas ku sugayay kiisas dacwada ah oo reerahooda oo qurbaha ku maqan doonay inay la midoobaan waxay u muuqataa abaabul qorsheysan oo gabdhahan lagu bartilmaameysanayo kadib koox ka dilaacday magaalada oo rabta inay lacag ka sameeyaan gabdhaha Soomaalida oo ay afduubtaan caawa oo kaliya waxaa la raadinayaa oo baadi goob loogu jira 3 gabdho oo Soomaaliya gabdhahaas la raadinayo midood ayaa video keeda ah uu soo baxay iyadoo wajiga si xun looga garaacay arxandara ah feer iyo farlaab sidii loogu waday gabadha wajigeeda dhiigayo taasi oo aan muuqaalkeeda hadda halkan la soo dhigi karin marka loo fiiro community guideline-ka ama nidaamka u degsan shirkadda Facebook oo aan oraali ka ahayn haddaba waxa hadda qadka si toos ah ugu jira wariye Bile Bashiir oo kamida wariyayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Kenya aadna arintan isha ugu hayay Bile see wax u socdaan bal arintan maxay tahay ay na soo wajahday gabdhaheena lagu bartilmaameysanayo munasar waa mahadsantahay waxaa bilaabatay afduub loo geysanaya gabdhaha Soomaalida ee Kenya ku nool gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay ee Islii caawa waxaa si weyn baraha bulshada Soomaalida ay ku wada xiriirto gaar ahaan WhatsApp-ka social media xaafadda Islii qabsaday sheekada soo shaabaxday ee ku aadan afduubka 3 gabdhood oo la leeyahay ilaa iyo hadda meel ay jaani cirbigan gabdhahan la leeyahay waa Soomaali gabar kamid waxa la yiraahdaa Xafso Maxamed Luqman gabadha kale waxa la yiraahdaa iyana Xafsa Abduhab gabadha saddexaad waxa la yiraahdaa Ummul Khair Ismaan gabdhahan saddexdoo meel ay aadeen balaleeyahay mid kamid ah gabdhaha waxa la sheegay inay yahay dukaanley oo dukaankeeda iyadoo xiraysa isla markaana gabar kale oo afka u xiran ay daba socoto oo nin adoomiga oo Kenyan u baaqaysa ayaa muuqaal ay qabatay kaamirada la yiraahdo CCTV ee dukaanka ku xirneed waxa loo badinayaa in gabadhaas daba socotay iyo ninka meesha fadhiyay ay shaqooyinka qayb ku lahaayeen gabadhaas waxa caawa la soo bandhigay muuqaalkeeda oo argagaxlay iyadoo wajiga aad looga qaraacay wajiga ka xiran labada gacmood iyo lugaha sidoo kale ka xiran waxaana la leeyahay markaas qof baa ka ag hadlaya oo luqadda Kiswahili ku hadlaya isagoo leh eelkaada waa lacag weydii madax furasha lacagta gabadha laga doonayo waxa lagu sheegay inay gaarayso lacag 5 milyan oo lacagta Kenya laga isticmaalo oo u dhiganta lacag $5,000 waa gartay Bile dabcan arintan waa arin ugu oo nagu cusub Soomaalida aad ay wadankaas ugu badan tahay Kenya gaar ahaan magaalooyinka kala duwan sida Islii xaafadda ah ama Nairobi guud ahaan arintan hadda sidee looga dareemayaa marka gudaha dalka Kenya gaar ahaan Soomaalida sidee u dareemaysaa halistan ma ku baraarugeen